بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين امتحاني سيرة أيام كجرنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سنة كي تضبط دمات كيسة يو بلوغي سنة كي سديدات أيام كجرنا حلقي وصو إسلامي خالد ابن الوليد رضي الله عنه إيو عمر ابن العاص waxayna soo joogtay Khalid oo ka soo baxay magaalada Makka bilowga sanadkii 8aad iyo Umar ibn al-Aas oo ay wadada ku kulmeen doodna ay wareysteen labaduba ay qireen inay Madiina u socdaan oo nabigu uu nabi xaq yahay sidii isku soo raaceen waxa faras kala daba yimid isagoo ordaya isna Uthman ibn Abi Talha oo ahaa ninkii furaha Kacbada hayay saddexdoodii ayaa magaalada Madiina soo galay wiil yar oo Ansaari ayaa arkay oo gartay uu soo orday marka inuu nabiga ugu bishaareeyay calayhi salaatu wasalaam imaanshaha Khalid ibn al-Walid mar hadduu yimid waana la filayay waa la sugayay oo waraaqba walaalkii hore ugu dirasaan soo sheegnayba Walid waraaqda waxaa ku taalay caqligaagu markaan fiiriyey ma ogolaanaya asnaam iyo dhagxaan inuu ag fadhiyo waxaan la yaabanahay caqliga kugu jira iyo saad weli u garan lahayd xaqnimada islaamka soo degdeg buu yiri walaalow u soo hormar buu islaamka waliba nabigu wuxuu igu yiri gacanteeda iyo gacantiisa Khalid waa is salaami doonaan buu igu yiri marka ma garanay maanta waxaad u dhex fadhido shirkigii iyo kufrigii ereyasaas waraaq ay ku taalo u diray marka Khalid markuu yimid oo wiilkii uu soo orday Abu Bakar baa arkay oo uu weydiiyay wuxuu yiri Abu Bakar rasuulka xagee ka hela asoo maartay faraxsan markaas yiri maxaa dhacay Khalid baa yimid buu yiri dad kale la socda Ilaahay baan kugu dhaariyay iyo ogolaabi rasuulka inaan u bishaareeyo marka wiilkii yaraa waa odayga u fasaxay waa yahay bir ard Abu Bakar baa soo xayto soo orday nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam masaajidka fadhiya rasuulkii Allah Khalid ibn al-Walid وايمد ومعه عمر بن العاص الله أكبر أيها النبي عليه الصلاة والسلام مكة ما أنت ألقت إلينا كبدها يعني بيرك هذا ما أنت صوتفت والناس صوتفت مكة خالد وبيرك مكة والله يكون حساب تميز مركا هذا قالوا حيل هذا النبي جوا سجوده إلهي وحمد النغي محايل وحي دليل تهجبك قريش كصعدة وقامياش هو ويناه ويرجع صعدة خالد وصاق لي النبي يمد عليه الصلاة والسلام وصهر فرستي وحانو يمد بيري إن الإسلام وأنكهنون حقا إلهي كوسو ديبي وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ولكن ولا جوجا يا مسلمين تكلات بوصا يا عين ولا ذكر فدي ولا تكبير صدي عمرو بن عاص صدق كلا يري عثمان صدق كلا ابن أبي طلحة كذب وحيد خالد رسولك الله وحان كعصنيا إلهي إبر إنه يعفيه أنت أن قاب دجال كاجو هرمت أما أنا أضاء إجمع عن كحنتي أما أنا أسكت دين عن دمير نور كإلهي وحق هرستاجو مركن وحي يا خالد الإسلام يجب ما قبله إسلام هو ترتلا وحي كهر ريبة أيضا أساسته وحن جعلان لها بيرنا إلهي إبرده نبي قعمه تاج عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لخالد بن الوليد إله خالد بن الوليد عافي ويري مال كستو يقول دغالمي يا goob kasto igu culaadiyay sir iyo caad wixii ugu dhibay ilaahu ka cafi Khalid aad buu wajigiisu u hilaacay baa la yiraahdaa yani uu farxay maalintaas waxa ku soo biiray mowqifkii islaamka ama socotadii dacwadii islaamka iyo tawxiidka geesiyaasha Carbeed kamid ah oo nabigu u bixin doono sayfullahi al-masluul sayfti ilaahay oo galka laga bixiyay aad baa loo soo dhaweeyay Khalid iyo saaxiibadii kale muslimiinta walaalahooda ay ku soo biireen walaalkii iyo asaga waa asarkeen wax yar kadib waxa dhintay Walid ibn al-Walid rahimahullah ma sii daayin xanuun baa ku dhacay baa la yiri Walid magaalada Madiina ayuu ku dhintay radiyallahu anhu waxa la gaaray dagaalkii Mu'ta dagaalkii hore soo marnay xalqadii hore saddexdii saxaabi oo nabigu u dhiibay 3,000 ciidamo oo amiiru yahay Zayd ibn Haritha nabigu soo koriyay guriga nabiga ku soo koray weeye oo la oran jiray xibbu rasuulillaah kii nabigu jeclaa calayhi salaatu wasalaam
waxaa haddii zayd la asiibo oo la dilo buu yiri nebigu jacfar ibn abi aalib baa hogaanka qabanaya. haddii jacfar waa la asiibana cabdullaahi ibnu rawaaxa alansaariy. saddexdii waatay ciidamadii wateen oo ay baxeen nebiguna la dardaarmay calayhi salaatu wasalaam mu'ta meesha la yiraahdo inay tagaan oo ay la soo xisaabtamaan ninkii la oran jiray sharxabeel ibnu camr alkhasaaniy oo dilay ergadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. ninkii waraaqda nebigu usoo dhiibay saxaabigii la oran jiray xaarif ibnu cumeyr oo waraaq uu siday ruum ayuu dhexda u galay oo uu dilay. arrintaa aad buu uga xarooday nebigu uga carooday calayhi salaatu wasalaam. carabtii waxay fariin u dirsadeen dowladdii ruum oo ay ka tirsanaayeen ee konfederaalka ay la ahaayeen oo ay ku shaqaysan jirtay iyaga, ayay yidhaahdeen maxamed baa nagu soo duulay oo ciidan xoog la wata sala allahu calayhi wasalama. waxay soo direen baa la yidhi 100,000 oo ciidamo ah. carabtii yani deganeyd khasaasinadii iyo kuwo kaleo judaam la yidhaahday iyo lukham kuwo kale la yidhahday, carabtiina waxay kusoo iyo xilifkooda iyagana 100,000 ku dhawaad oo kale keeneen. yacni badweyn baa la moodaa hir dad ah bay keeneen. meesha macaan la yidhahda markay marayeen bay sahan direen marka saxaabadii nebigu. waxaa la soo ogaaday ciidanka meesha loogu socdo 20 goorn iyay ka badan yahay, 10 goor xataa maaha, 20 goorn iyay ka badan yahay. marka waxaa la yidhi 2 maalmood baa meesha la fadhiyay, see yeelnaa baa la yidhi. fariin aan nebiga u dirsano ama soo noqdona dhihi ama amar kaluna siini. marka waxaa dadkii geesinimo geliyay cabdullahi ibn rawaax. nebigana waa laga soo fogaaday calayhi salaatu wasalaam. tukhuum shaam meesha la yidhaha la maraya, yacni xuduudihii shaam baa la maraya. jasiir alcarab iyo shaam meesha iska galaan waay. wuxuu yidhi arrinta aad ka walwaleysaan waa kaad usoo baxdeen inaad heshaan, waa shahaada. dadka cuddo kulama dagaalano iyo ciddo tiro iyo kulama dagaalamo iyo awood. waxaan kula dagaalanaa taqwadan iyo diintan aan rumaynay ilaahay nebigiisa la soo diray. marka wuxuu yidhi maxaad la walwaleysaan, horaan u galno. waayahay baa la yidhi waxaa fariintii dib loo celinaha waa la iska dhaafay. waxaa lagu calool adeegay in 200,000 oo ciidamo ah 3,000 lagu qaabilo. waa waxyaabaha dahshada ku riday la yaabka romaanka iyo carabtii oo dhanba dadka waktigaa joogay. maxaa yeelay ciidan isu dhigmaa tiri xataa isu dhow waxyar waa marka lagu miisaamo awoodda ciidanka waxaa weeye waa xabad misago af la geliyey libaax. 200,000 iyo 3,000 aad bay u kala badan yihin. maca daalika dadkani ilaahay bay rumeeyeen, rabbigoodna ma dayacin subxaanahu watacaala. waa la isu saftay, waa la is arkay, dagaalkii wuu bilowday. maalintii koowaad dagaalkii waa bilowday, waa socday. zayd ibnu xaaritha la dilay, hogaamiyihii muslimiinta ayaa la dilay. habeenkii marka waa la isu nastaa, dhaawacana waa la dadaweystaa, dhiigga laga xiraa, meydkana waa la aastaa. subaxiina dagaalku waa bilowda. zayd ibnu xaaritha markii la dilay radia allahu canhu waxaa la wareegay oo raayadii muslimiinta qaaday jacfar ibn abi aalib oo asna dagaalamay 2 maalmood meelaha dagaalamayey, hogaanka hayey. isna waa la dilay. weliba asaga waxaa la sheegaa gacantii uu ku waday baa laga gooyey calanka, gacanta kale uu ku qabsaday tiina waa laga jaray. calanka muslimiintu way fiirsadaan macnaha, oo wuxuu noqonay calanku waa ramsi kor laga ilaalsado oo markuu dhulku dhaco hasiimay u eg tahay. laakiin intuu calanku taagan yahay moralka ciidankaa dhisan waa lagu dagaalamaa. marka weliba qofka calanka wada meel taaga intuu fuulo ayaa ciidan gaara loo sameeyo isaga difaaca, si aan calanku dhulka ugu dhicin, dadkuna ay u fiirsadaan oo dagaalku ugu waa la kala fog yahay. inta qofku calankiisiyo taagan uu arkaya moral buu leeyahay dagaalku u wadaya. jacfar markii 2 gacmood laga jaray wuxuu ku qabsaday laabta iyo garku iskula qabtay suusan u dhicin. marka waa loogu yimid, intiina waa lagu dhuftay. aduu si fiican baa loo dilay. waxaa calankii qaaday cabdullaahi ibnu rawaax ayaa calankii dhiigla loo keenay. weliba marka cabdullaahi ibnu rawaaxa ayaa naftiisa la hadlay, isagoo gabyaabu ahaa. waad ogtihiin faraskiisu ka soo booday. waa maalintii 4aad ama maalintii 5aad, 12 maalmood dagaalamayeen baa la yihahdaa. 7 cishay dagaalamayeen. muslimiinta o dhan waxaa ka shahiiday 12 qof, waxayna dileen 3,000 ka badan. waa arrin la yaab leh, mucjizo ah. cabdullaahi ibnu rawaaxa naftiisu la hadlay, yaa nafsi in lam tuqtalii tamuuti buu yidhi. nafyahay haddaan lagu dilin xataa waad dhiman doontaa.
isagoo nafta la hadlo wuxuu sii raaciye haadaa ximaamu lmowti qad saliiti waa kan buu yidhi meeshii geerida saldhiggii geerida nafta lagu qaadayay waad soo gaadhay wamaa tamanayti qad uctiiti wixii aadan tamaniyeysay nafyeyso shahaado maadan rabin shahiidnimo haa waa lagu siiyey maanta maxaad u baqaysaa naftiisuu caraabinaya oo kicinaya isagaas dhiiri gelinaya in tafcali haddaad samayso ficilahumaa hudiiti buu yidhi labadaas siday sameeyeen waa zayd iyo jacfare sidoodoo kale haddaad samaysood ku mintid ilaa lagu dilo waad hanuuntay wuu dagaalamay faqaatala xataa qutil ilaa laga dilay isagiina maalintii afraad in ahayd baan malaynay habeenkiina meydka la aastaa ibnu cumar oo ka waramaya oo markaa dee dadkii dhalinyarada soo kora dagaalkaas galay ku jiray isagoo waa laga reeba dagaaladii hore uxud oo kale wuu yaraa laakiin wuu gala dagaalkan cabdullahi ibni cumar radia allahu canhu wuxuu yihi waxaan ka tiri nebi yiri jacfar ibni abi aalib xamadkiisa iyo garabkiisa inta udhaxaysa 70 dhaawac wax ku dhow oo ama fallaar ama waran ama seefa waa dee xamadka iyo garabka dhexdooda waa la dagaalamay maalintaas si cajiiba loola dagaalamay gaaladii marka cabdullaahi ibni rawaxa radia allahu canhu dagaalkii wuu galay markuu naftiisa si fiican u gubaabiyey maa lii araaki takrahiina aljanna naftii buu ku odhanaya maxaa kugu dhacay jannadii baaba diidantahay oo karahaysaa wuu dagaalamay radia allahu canhu isna waa la dilay muslimiintii markaan qaa'id ma leh calankii bay qabsadeen muslimiintii yaa loo dhiibaa baa la yidhi khaalid bin lwaliid oo dhowr bilood muslim ah ayaa la yidhi khaalid qabo khaalid wuxuu yidhi aniga islaamka waa la iga soo horreeyey dad iga waaweyn baa jooga muslimiinta iga horreeyey waxaa la yidhi islaamnimadii iyo fahamka diinta waa gaar taagtiigga ciidanka iyo dagaalkuna waa gaar marka haybad baa alla kuu siiyey baa la yidhi xagga dagaalka la wareeg hogaaminta ciidanka khaalid baa la wareegay radia allahu canhu nebiguna isagoo meeshiisa jooga ayuu ka waramayay maanta raayadii waxaa qaaday zayd ibnu xaarita dagaalkii waa bilowday waa la asiibay buu lahaa calayhi salaatu wasalaam isagoo ilmeynaya waxaa qaaday jacfar ibni abi aalib isna waa la asiibay oo waa shahiiday waxaa qaaday cabdullaahi ibni rawaxa isna waa shahiiday waxaa qaaday buu yihi sayf min suyuuf illaahi seefihii ilaahay ka mid a gacmihiisaana alla fatx iyo guul ku keeni doonaa waa khaalid bin alwaliid markaas ayaa loo bixiya la yihahdaa sayfullah khaalid marka wuu arkay ciidankan aad inay uga badan yihiin muslimiinta intooda yarta in la badbaadiya usoo baxday wuxuu sameeyey dagaalkii habeenkii marka la isu nastay ayuu ciidamadii lugeeya dhowr boqol buu hoos ka diray cabaar inta lugeysaan buuraha gadaashooda tagtaan meeshii laga yimid dab soo shida wax gurmada iska dhigay marka 500 400 dab wata oo fardo wata kala soo degaya buurtan kuwa kale ku xiga caawa dhan gaalada waxay arkaan buuraha waxa ka soo degaya iyo gurdamka gururugda fardaha marka waxa la iyagu intii yara caawa intaas oo gurmada u iimaanaysay kuwan waagu markuu bariyo waabana baabiin doonaan iyaga laftigooda jug baa ku dhacday gaalada waa yaaban yihiin 3,000 oo nin baa laga dilay baa la yiraahdaa muslimiintu si cajiib ah u dagaalamay ilaa qaarkood ka yiraahdaan jin baan la dagaalamay insiba ma han dadkan bay yiraahdaan geesnimada muslimiinta iyo dabcan ilaahay baa u hiiliyay laga yaabo malaa'igna dagaal ku jirtay marka ciidamadii yimaadeen isla gurmadkii uu yimid macnaha gurmad ma jire laakiin uu ayaga uga dhigay ayuu haddana wuxuu kala bedelay qolo walba ciddii subaxii qaabilaysa xagga wejigooda ciidankii bariga jiray macnaha dhanka maymanada midigta maysaradii buu keenay kuwa maysarada jira maymanadu geeyey kuwii hore jiray gadaal buu geeyey kuwa gadaal jiray hore u keenay si loo maleeyo wejiyo cusub ciidan cusub oo gurmad ku yimid dagaalkii baa la galay maalintii gaalada iyagoo naxsan baa la galay si fiican baa loo jilciyay gaalada haddana sidoo kale habeenkii labaad yeelay gurmadyo fara badan buu sidoo gaaladii waa yaabeen subaxii marka in la weeraray markay filayeenba isla aroortii salaada subax ka hor buu ka guureeyey marka ciidamadii gadaal insixaab waxa la yidhaahdo sameeyey wuxuu ka dhex saaray ayaa la yidhaahdaa qalkii ama labadii ilkood ee gaalada 200 oo kun oo wax yar dhiman weeye geesahay ka mari karaan hal mar bay qabsiin karaan ilaahay baa ka ilaaliyay subxaanahu wa tacaala wuu la baxay muslimiintii habeenimuu guuraysiiyey buurihii buu kala degay waagu markuu baryay gaaladu waxay sugayseen in iyaga lasoo weeraro way sugeen cid soo dhaqaaqday male
hadhow bay carada fiiliyeen ciidamo ma joogtaba waa fogaada marka mana gaari karaan waxaa la yidhi marka nabiga calayhi salaatu wasalaam niman munaafiqiina markii eedeeyey khaalid waxay yidhaahdeen fara khaalidun min alghazwa yani duulaankiibu ka soo cararay dagaalkiibu ka soo cararay laa firaar buu yiri nabiga bal kiraar firaar maa soo cararay maaha laakiin waa lagu karar celin doonaa tanna uu sameeyena waa guul iyo sharaf waa muslimiintii buu ka soo badbaadiyey gaaladii xoogga badnayd gaaladiina jug fiican waa la soo gaarsiiyey oo u dhiganta dulmiga ay sameeyeen jacfar ibn abi aalib ciddiisii caruurtiisii u tegay nabiga calayhi salaatu wasalaam intaan ciidankiiba imaan muslimiintu nabiga oo cilmihii baa loo keenay cabdullaahi ibnu jacfar iyo maxamed ibnu jacfar iyo ayuu dhudhunkaday oo adeerka u ahaa calayhi salaatu wasalaam ilin baana ka socotay marka asmaa bintu cumays waa gabadhii uu qabay radia allahu canha jacfar ibn abi aalib oo loo yaqaanay gabadhii yani muhaajiriinta gabdhaha ugu caansan ba yani alxabashiya la oran jiray si nabigu mar yiri tu gurigiisa ku arkay iyadoo xafsi soo booqatay ma gabadhii muhaajiradeeda xabashiyadahayd baa kula joogtay yiri marka waa asmaa bintu cumays weliba qolaa u faantay muhaajiriina cumar buu ahaa cumar baa wuxuu yidhi annagaa idinkaga fadli badan nabiga la joogitaankiisa iyo suxbadiisa adinku dee xabashidaad jirteen marka arrintii nabiga weydiisay calayhi salaatu wasalaam tay aada u carootay wuxuu yidhi adinka cid iga keen xigta male maxaa yeele laba fadli aad leedihiin fadligii hijrada iyo kii suxbada aad leedihiin marka dadkii xabashida dhankeeda usoo hijrado dhan waa ammaani jireen aad bay u jeclaayeen asmaa bintu cubays 15 sano ayay jirtay iyadii odageeduba dhulka xabashida najaashi la joogeen ridwaan ullaahi calayhim markuu gurigeeda yimid oo caruurtii uu dhudhunkanaya aragtay ilinna ay ka socoto ay weydiiso way garat waxay tiri jeyshkii jacfar iyo muslimiintii miyaa wax dhiba gaareen haabir jacfar maanta ayuu shahiiday radia allahu canhu bas gurigeeday gudaha u gashay inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun bay tiri odageedii jacfar ibn abi aalib radia allahu canhu dagaalkaasu ku shahiiday waxaa la yidhahda 40 muusan gaarin da ahaan laakiin geesi buu ahaa tayaar baa loo bixiyey oo nebigu wuxuu ka warramay baa la yidhahda calayhi salaatu wasalaam ilaahay labadiisa garab inuu laba garab uu jannada ku dhex duulayo uu ugu bedelay jacfar atayaar baa loo yaqaanaa radia allahu canhu nebigu wuxuu yihi marka reer jacfar cuntaha loo sameeyo waa sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam yani ayaga wahm musiiba ku dhacday qofka guriga laga dhintay isaga cunto loo soo karinaya asaga cunto lagama karsanayo sida ay mushrikiinta iyo suufiyada iyo ahlulbiduc dhaqankooda iyo guriga laga dhintay bay xoola ku qashaan weliba xoolihii agoontay qashaan in xoolo la qalana nebigu ma amrin cuntaha loo soo kariyo cuntaha meel kale loogu soo karinayo waa loo keenayay 3 maalmood way sunnadu in dadkaas aanay dab shidan oo cunto loo keeno iyaga dadka aqribadooda iyo dariskooda ay u keenaan xoolo la qalana lama sheegin oo nebigu dad dhintay u qalay calayhi salaatu wasalaam marka caaisha khadiija u qalana waa been wey xadiidka suufiyadu daliilsadaan sida u fasirteen maba ah xadiidku sheekh al-Bukhari buu ku yaalaa caaishana warinaysa nabigu neef ma qashay tiri ilaa khadiijo qaraabada saaxiibada hilibka waxbuu ka siin jiray neef kasta u qasho ama udxiya ha u qasho ama hilib ha u qasho ama martiqaad ha u qasho wuxuu ku xiriirinayay khadiijo saaxiibadeed khadiijo waa xaaskii nabiga uu jeclaa calayhi salaatu wasalaam ilmaha u dhashay iyo qaraabadeedii ku xiriirin jiray ma khadiijo u qalay marka ma uma qalin udxiyo kale u qashay kaba soo qaad ama hilbo kale u qashay markaasuu hilbaha waxa uga geyn jiray been bay markaa ka sheegeen yidhahdeen nebigu khadiija u qalay waa beentoodu wey nebigu qof dhinta waxba uma gowracin calayhi salaatu wasalaam isagaana na baray wadada sunnada ee xaqa isagaana baray salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka halkaas ciidankii baa soo laabtay khaalid uu hogaaminayo markaas ayuu qaatay laqabka ama naynaasta ah sayfullaahi almasluul waa khaalid ibn alwaliid dad badan baa markaa la yaabanaa oo saxaabaha ninkan hadda soo islaamay sidee magacaas intaa u qaatay laakiin gadaal baa laga ogaaday geeridii nebiga kadib calayhi salaatu wasalaam bay soo baxday khaalid wixii uu sameeyey radia allahu canhu waana u tegi doonaa waxaan isku dayaa khulafaa raashidiin wax ka mid ah aan ka soo hadlo ilaahay idankii marka nabiga alla oofsado siirada ay tan nebigu dhammaato calayhi salaatu wasalaam waa muhiim in khulafaa raashidiin wax ka mid a looga daro dagaalkii markii uu soo laabtay khaalid nabigu ciidamadii madiine ay kusoo laabteen shuhadadii dee wixii soo 12 shahiid ayaga waxaa lagu soo aasay dhulkii mu'ta ayaa muslimiintii diyaargarowgoodii kale unbay galeen dhaawacoodin inay daweystaan
waxaa dhacday arrintii weyneed marka oo sababi doonta furashadii magaalada Maka. arrintaas waxaa weeye in qabiilkii la oran jiray Khuzaaca awal waasaan soo sheegnay heshiiskii markii la galay nabiga sulh Hudaybiya 2 sanadood ka hor ayaga iyo Quraysh nabiga iyo Quraysh calayhi salaatu wasalaam waxaa ku jirtay heshiiska ninkii nabiga iyo cahdigiisa xilifkiisa gala uu galaya ninkii Quraysh iyo xilifkooda iyo cahdigooda galana uu galaya. Bani Bakar waxay gashay xilifka Quraysh, Khuzaacana waxay gashay xilifka ama gaashaanbuurta nabiga calayhi salaatu wasalaam. Khuzaaca marka meel watiir la yiraahdo Kacbada u dhow yani Maka u dhow habeenimo jooga ceelkooda ka watiir ceel la yiraahdo ka shubanaya ayay weerar ku soo qaaday Bani Bakar. labada qol colaad baa u dhaxaysay Bani Bakar iyo qabiilkan la yiraahdo Khuzaaca. weerar gaadma Qurayshtuna hubna waa ku caawisay ragna way ku caawisay baa la yiraahdaa. nimankii oo dagan bay arkeen fursad bay u arkeen weerar bay ku soo qaadeen dakana hore u qabeen meeshii bay dad badan uga laayeen xataa waxa la yiraahdaa qaar baa cararay oo Maka galay uga may haran xataa Maka iyo xaramka ku dileen. arrintii marka Khuzaaca markii arrintaas ku dhacday Khuzaaca garab ay isku haleeyaan bay leeyihiin oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ay gaashaanbuur kula jiraan. Saalim nin la yiraahdo Amr ibn Saalim baa la soo diray odayaashooda ka mid ah oo ilaa 40 qof ay la socdaan baa la yiraahdaa ama 14 qof ayaa nabigu u yimid calayhi salaatu wasalaam isagoo aad u ilmeynayo niyad jabsan. marka eraye gabay wuxuu ku gudbiyey tacbiirkiisa ama wixii marka uu qabay fikirkiisa shucuurtiisii uu qabay wuxuu ku gudbiyey gabay asagoo nabiga hortaagan calayhi salaatu wasalaam. wuxuu yiri fansur hadaka Allahu nasran abada noo gargaar bir Allah ku hanuuniye nasran noo gargaar Allah hanuun ku siiyo weligaaba hanuun jiri doone. إن قريش أخلفوك الموعدا قريش بلنكي واكاغا بحضي وهم أذل وأقل عددا يغانا أوذو ليس المانتا ضد ونتر يربير هم بيتونا في الوتير هجدا هبيني من نغصة ويرارين بيتوا مرك الله ميردتك في الوتير عالك وتير هجدا هبيني أيغا ويرارا وقتلونا واندلين ركعا وسجدا أنغو ركوعا وسجوسا بين اللهين النبي قال دغيست هل اريب يري عليه الصلاه والسلام نصرت بيري يا عمرو بن سالم ولغو غرغاري بيري معناها دولان بو قاده يا نبي عليه الصلاه والسلام وصلى الله عليه ادنا وفد كلا قريش وفد كلا سمركي يمد او خزاعه ايغنا دبكي انay ka nabiga dacwoodaan raba oo Budayl ibn Warqa oo nabiga saaxiib la ahaa wax badan usoo tabin jiray oo xogta Quraysh ayaa yimid isna arintii uu sheegay nabigu wuxuu yiri waa la idin gargaaray marka Quraysh ballantii waa jabis ballanku 10 sano in la istaaban buu ahaa xilifkii nabiga ayay laayeen in ballantii jabiyeen way og yihiin arintii Abu Sufyaan ayaa soo direen oo wafdi ah oo nabiga u soo direen calayhi salaatu wasalaam si loo cusboonaysiiyo heshiiska intee ballanta ka baxeen. marka magaalada Madiina ayuu yimid guriga gabadhiisu ku soo degay gabadhiisu waa xaaska nabiga calayhi salaatu wasalaam waa Ramlata bintu Abu Sufyaan waqti hore ay nabi aabaas ugu dambeysay waatay ka hijrootay sanadkii 7 ayay ka hijrootay nabinimada magaalada Maka 6 sano iyo 8 sano isku dar 15 sano ka hor ayay isugu dambeysay aabaheed gurigii markuu soo galay ee dirintii nabigu damcaan uu ku fariisto dirintii bay ka duubatay markaasuu gabadhaydii dirintan miyaad ii nacday oo dirin xun miyaad isleedahay aaba mid fiican miyaad ii soo wadaa mise iyada iga jeclaato anaad ii diidantahay marka waxay tiri tan waa dirintii nabiga sallallahu alayhi wasallam adna mushrik najaasa taaytir wallahi qad asaabaki ba'di sharran bir shar badan baa ku asiibay aniga gadaasheeda guriga ka bax nabiga masaajidka ugu tagay calayhi salaatu wasalaam soo qaylinaya maxamed wuxuu yiri anaga balanta waxba kama aanan jabin war kama haynin meeshaan lagu dagaalamay ma aanan gelin dadka hawsha Quraysh baa ku jira been weeye waxaas uu yiri nabiga waa ka sii jeestay calayhi salaatu wasalaam uma jawaabin haddana uu soo wareegay wajiga nabiga 4 goor buu nabigu ka jeesanayay ma u jawaabin wana calaysan yahay sallallahu alayhi wasallam. أبو بكر بو يمد يا ابن أبي قحافة يقال هذا البير محمد أنا waxaan ma nasabeen
dagaalkan kumaana jirin been baa nala ka sheegay ma ana bifaacilin biro nabiga la hadli maayo yidhi aniga calayhi salaatu wasalaam wuu tegay cumar buu haddana u tegey ya ibna khataab la hadal buu yidhi nabiga igala hadal markaasuu yidhi maanaa adiga kuu ergeynay haddii buu yidhi ul buu gacanta ku hayay wax kale gacantayda aanay ku soo harin ilaa ulshaas keliya mooye wallahi tan aan idinkula dagaalamaya buu yidhi wuu ka soo tegay cali bni abi aalib gurigiisuu yimid wuxuu yidhi qaraabaa nahay tolkiina waa isku baaba'aya maxamed go-aan inuu qaatay bay u eg tahay igala hadal wuxuu yidhi nabiga hadduu go-aan qaato ama uu caroodo nin la hadli karaa ma jiro calayhi salaatu wasalaam mana la hadli karo yidhi anigi markaasuu yidhi faadimo la hadla faadimo wiilkaagan yarka ah xasan oo markaa dhabta ay ku hayso oo yar maya waa aabiis ag fadhiya dheh waa kurga markaas sanad saddexaad buu dhashay markaana sanad sideedaad 5 jir meelahaas waa wiilkaagan yarka ah carab ha kala badbaadiyo yidhi maanta hana noqdo sayidkii carbeed mustaqbalka wiilkayga arrintaa ma gaarin bay tiri cid nabiga ilaahay kaa gargaar manaha kaa shafeeca qaadayso kaa ergeynaysana ma jirto isdaalin wuxuu yidhi marka cali oo ila tali dadka adaa hadda si degan ila hadle bal ila tali intaad masaajidka dhex istaagto yidhi waxaad tirahdaa anaa tolkeeda labada ciidan anaa kala badbaadiye muslimiinta iyo quraysh anaa kala magangeliye dheh markaasuu yidhi arrintaa maxay ii taraysaa wallahi waxba kuma tarayso yidhi laakiin wax kaloon ku dhahaan garan waayo yidhi maxamedan ogolaan maxay ii taraysaa buu yidhi waxba kuma tarayso yidhi ee wax kaloon kugula taliyo ma garanayo yidhi masaajidku dhex istaage anaa dadka kale magan geliyey anoo sayidkii quraysheeda buu iska yiriiri waana iska baxay makuu tegey safwaan iyo cikrime iyo suhayl iyo odayaashiiba u yimid maxaad la soo kulantaa layidhi waa ila hadli waayey buu yidhi maxamed calayhi salaatu wasalaam nimankii kalena saas ay igu jawaabeen ninkii dadka iigu jilicsanaa si fiican ila hadlay cali buu noqday calina wuxuu yidhi saas yeel sidii baan yeelay oo dadkan kale magan geliyey oo waxay dhaheen maxamed ma kuu ogolaa maya wallahi ninka waa kugu cayaaree dhehen nin weyn baa ahayd iska hantaa tacaysa dagaal baa nugu soo socda diyaargaroow bay dheheniyo duu kula hadli waaye maxamed go-aan baa u diyaarsana ayagaa xoogaa ishiifo is eedeeyey marka nimankaas maxaa u taageerteen iyo bani bakar iyo hubka nimankaana dhiibay cikrime ayaa dhiibaa la yidhaahdaa iyo safwaan iyo nabigu ilaahay buu bariyay xadiis bayhaqi ku sugan oo saxadiisa aada loo sheego inuu wanaagsan yahay ilaah wuxuu yidhi yani xogteyda ka qari quraysh maadaama wuxuu rabaa in gaadmo uu ku qabto magaalada oo ayna dagaal isu diyaarin geeri badan aanay dhicin xaramkana aan la isku layn ayuu jeclaa calayhi salaatu wasalaam marka ilaahay buu bariyey subxaanahu watacaala in ilaahay maaragtay sirtiisa ama xogta dagaalka diduulaanka uu qaadayo uu qariyo subxaanahu watacaala muslimiintiina uu cidiray wuxuu leeyahay qofkii muslimo soo diyaar garow 10,000 oo ciidamo isku timid oo ciidankii ugu badnaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam isugu yimaada fatxu maka ka hor 10,000 ayuu la dhaqaaqay oo nabigu dagaalkiibuu aaday cabaas ibni cabdilmutalib oo soo hijrooday jidka uga hor iman doona halkaas inoo joogtaa iyo nin kale oo nabiga ay ilmaadeen ahaayeen abu sufyaan ibnu xaarith ibni cabdilmutalib oo aada nabiga u dhibi jiray isaguna jidka uga hor yimid wixii ka dhacdhacayna waa ka warrami doonaa insha allahu tacaala nabiga oo maka u socda oo dagaalkii maka u socda ayay inoo joogeysaa fatxulmaka bishii ramadaan sanadkii 8aad ee hijrada wajazaakum allahu khayra wallahu subxaana wa tacaala aclam